Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janalka mar kale soo dhawaada. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago maamulka Trump oo maanta shaaciyay in dadka soo galootiga sharci darrada ku jooga Mareykanka oo iyagu iskood isku masaafuriya in lacag la siin doono. Haddaba lacagtaasi intee la eg tahay ayaan rabaa inaan idinla wadaago. Iyo sidoo kalena waxaa jirta in ID-gii ama real ID-gii aan rabo waxyaabo muhiim ah oo aan rabo inaan dadka la socodsiiyo gaar ahaan gobolada siday u kala duwan yihiin inaan rabo inaan idinla wadaago haddii aan la idmo. Marka hore soo dhawaada. Wasaaradda Amniga Gudaha ee Mareykanka ayaa maanta waxay shaacisay in dadka iyagu iskood isku masaafuriya oo wadanka sharci darrada ku jooga iyagoo isticmaalaya abka ay dowladdu ku dhawaaqday ku dhawaad muddo 2 bilood ka hore ee CBP Home in lacago la siin doono dadkaasi haddii iskood ay isku masaafuriyeen. Haddaba maamulka Trump ayaa waxa uu sheegay inuu u bandhigayo dadka wadanka sharci darrada ku jooga oo doonaya in abkaasi ay isticmaalaan isla markaana ay wadankoodii hooyo dib ugu laabtaan in la siin doono lacag $1,000 ah. Lacag badan maahan, laakiin waxa uu maamulku leeyahay arrintaasi ayaan doonaynaa inaan sameyno. Marka self deportation markuu isticmaalo oo abka ay dowladdu ay soo saartay uu qofku adeegsado ayaana lacagtan la siin doona. Arrintan maanta ayaa wasaaradda amniga gudaha ay ku dhawaaqday waxaana ay sheegtay inay gacan ka geysanayso dib ugu laabashada qofkaasi uu wadankiisii hooyo dib ugu laabinayo. Waxaana la siin doonaa lacagtaasi qofka marka la xaqiijiyo inuu wadankiisii dib ugu laabtay oo abka CBP1ka ama CBP Home-ka laga xaqiijiyo. Marka qofku markii uu tago wadankiisa confirm ayuu dhahayaa, macnaha Soomaaliya wadankeyga ayaan dib ugu laabtay. Abkaasi markuu qofku xaqiijiyo kadib ayaa lacagtaasi la siinaya. Marka qaabkee loo siinayaa dowladdu sharaxaad ma aysan ka sii bixin. Ma abka gudihiisa lacagta laga siinayaa, qofka sidee lacagtaasi lagu siinaya, mahayado xagga joogo soo dhaweynayo ayaa loogu dirayaa oo siinaya. Ilaa hadda dowladdu faahfaahin dheeraada ma aysan ka bixin, laakiin waxay leedahay lacagtaasi $1,000 ah ayaan siinaynaa qofkii abkaasi isticmaala wadankana isaga masaafuriya. Haddaba arrinta dowladdu waxay doonaysaa lacago fara badan inay dhankeeda u baaqdaan. Waxa ay dowladda sida maamulka Trump uu sheegay uu qof kasta oo wadanka sharci darrada ku jooga ayaan doonayaa inaan masaafuriyo. Marka dowladdu lacag ayay save gareynaysaa marka ay soo saartay abkan oo ay leedahay qofku iskiiha isku masaafuriyo. Maxaa yeelay in dowladdu marka ay qofka soo xirto oo xabsi ay geliso isla markaana removal haddana ay geliso lacagta ku kacaysa waxa la leeyahay waa $17,000 calaa shakhsi in wadanka laga masaafuriyo. Marka hal qof oo kaliya in Mareykanka laga masaafuriyo lacag $17,000 ah ayaa ku baxaysa. Laakiin qofku hadduu iskii isku masaafurinayo waxa ku baxaysa ayaa la leeyahay lacag gaaraysa ilaa $4,500. marka 70% waa ay save gareynayaan. Marka self deportation-kan waxay tahay in qofku isagu si shakhsiyana uu yiraahdo wadanka ayaan doonayaa inaan isaga baxo, isla markaana waxa uu ku wargelinayaa ciidamada ICE iyo wasaaradda amniga gudaha. Sidaas darteed qofku waxa uu sheegayaa in uu doonayo inuu ismasaafuriyo. Abka ayuu marka hore la soo degayaa, kadib informationkiisa ayuu gelinayaa, informationkaasi ayuu submit leeyahay. Markaas kadibna isaga ayaa maamulaya qaabkii uu wadanka uu uga bixi lahaa. Marka sidaas darteed dowladdu waxa ay dadejinaysaa ayaa la leeyahay qofku marka uu CBP Home isticmaalo uu doonayo si mutadawacnimo ah inuu isku masaafuriyo, muhiimad gaar ah ayaa la siinayaa. Lama xiri doono, wadankana qasab loogama saarayo. Sidaas darteed ilaa iyo intuu isagu uu doonayo qofku inuu wadanka ka baxo oo wadankiisii hooyo uu dib ugu laabto. Marka waxay sidoo kale dowladdu ay ka caawinaysaa qofkan in tikitkii loo jaro, sidoo kalena inuu helo waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee travel documentiga. Qofku haddii uusan xitaa baasaboor lahayn in isaga laga saacido in uu wadanka uu isaga baxo. Waxaa jiray dad ila soo xiriiray oo qaarkood Yurub ka yimid oo dhahaya baasaboor ayaan haysanaa, hadda waxaan diyaar u nahay in wadankii Yurub oo aan ka imaanay aan dib ugu laabano. Mareykanka ayay soo galeen. Marka qaabkee ayaan u baxnaa? Qofku abkan oo kale ayuu isticmaali karaa, amaba sidoo kalena in uu yiraahdo wax baasaboor amaba haysto oo haddii Soomaaliya lagu celiyo kadibna baasaboorkiisa isagoo haysto uu Yurub uu sidaas ugu laabtana sidoo kalena qofku waa uu sameyn karaa. Marka dowladdu waxay leedahay dokumentiyada lagama maarmaanka iyo tikitka ayaan ka caawinaynaa marka qofka uu xaqiijiyo in uu doonayo inuu wadanka Mareykanka isaga baxo. Muddo 3 toddobaad gudahooda ayaana wadanka
uu qofkaasi uga baxaya marka uu abkaasi isticmaalo oo informationkiisa uu geliyo 3 toddobaad kama badnaan doonto in qofku wadanka Mareykanka uu ka baxo wadankiisa hooyo uu ka yimid uu dib ugu laabto marka abkan markii hore CBP1 ayaa la dhihi jiray oo maamulka Biden ayaa waxa uu ogolaa jiray dadka ka imaanaya 4 wadan sida Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela in ay ballan ka qabsadaan kadibna meelaha laga soo galo Mareykanka ay yimaadaan markaas kadibna halkaasi lagu qaabilo marka waa uu bedelay Trump oo dhinaca kale ayuu u bedelay halka CBP1 uu ka ahaan jiray CBP Home ayuu u bedelay taasi uu sheegay inuu u ogolaanayo dadka wadanka sharci darrada ku jooga inay wadankoodii dib ugu laabtaan isla markaana haddii ay doonayaan Mareykanka inay qaab sharciya ku soo galaan mar kale ay ku soo gali karaan laakiin haddii aad diido inaad ismasaafurayso macnaha waxay tahay oo lagu qabto lagu xiro wadanka laga saaro waxa aad kaan doonto in Mareykanka xitaa qaab sharciya aad dib ugu soo laabato maadaama systemku uu ku galayo dadka qaar ay sidaas ku sameeyaan qaar 5 sano qaar 10 sano qaar 15 sano qaar 20 sano ay yiraahdaan Mareykanka kuma soo laaban kartid oo systemka ay qofkaasi u gelinayaan sidaas darteed ayaa marka maamulka Trump waxa uu leeyahay waxaan u ogolaanaynaa dadka soo galootiga haddii ay doonayaan in iskooda isku masaafuriyaan in ay shaqooyinka ay lahaayeen ay ka tagaan oo iska soo xirxiraan iskuul haddii dhiganayeen arrimo kale oo muhiim ah qofkiina waxyaabihii oo idin 3 toddobaad ayaa la siinayaa inuu howlihiisa dhan ku soo gabagabeeyo markaas kadibna si nidaamsan oo sharciya wadankiisii hooyo oo dib ugu laabto waxaana sidoo kale qofka ay ka saacidaysaa ayaa la leeyahay arinta walwalka ah qofka goorma lagu xirayaa goorma lagu masaafurinaya waxyaabahaas oo idil macnaha haddii aad informationka abkaasi geliso wax kugu mashquulaya male adigu 3 toddobaad gudahood howlaha soo dhamaysan laguma xirayo xabsi laguma geynayo markaas kadib adiga ayaa si mutadawacnimo iska wadanka uga baxaya marka Trump waa kii ballan qaaday inuu masaafurinta ugu ballaarin oo wadanka ka sameeyo hadda waxa la leeyahay boqolkiisii maalmood u horeeyay waxa uu wadanka ka masaafuriyay dad gaaraya 135,000 oo qof waxaana ku jira kuwa uu ku xiray xabsiyada Venezuela iyo El Salvador kuwa ka yimid oo gaangiska uu sheegay la geeyay xabsiga ku yaala El Salvador oo iyagu halkaasi ku xiran marka maamulka Trump waxa uu leeyahay qofkii doonaya inuu isku masaafuriyo waxaan ka saacidaynaa tikidkii iyo dokumentiyada uu u baahnaa inuu ku baxo lacag $1 waliba jeebgasheena waan sii siinaynaa sidaas darteed dadku waa inay iskood ay isku masaafuriyaan marka haddii aad doonayso inaad iska isku masaafuriso abkaasi la soo deg informationkaada gali markaas kadibna waxyaabaha aad u baahan tahay sida tikidkii oo kale markii horeba dawladda iyada dhahaysa tikidka qofku ha iska bixiya laakiin hadda wax sida muuqata si dawladda lacag fara badan ay ugu badbaado tikidkii xitaa dokumentiyada haddii go home iyo aad u baahan tahay dawladda iyada ka saacidaysa arrimahaas oo waliba $1 waa lagu siinaya walow hadda aan jeebka lagu sii gelin laakiin markii aad wadankaada tagto oo abku qofku markuu wadankiisa ku laabto waa xaqiijinaya inuu wadankiisa ku laabtay confirm ayuu leeyahay markaas kadib dawladda $1,000 iyada siinaysa qaabka ay ku siinaysana ama gadaal ay ka sheegi doonaan ama waa in arki doonaa haddii aan la yiraahdo ugu dambeyntii real ID-gii waxa ka harsan maanta berri iyo Arbacada oo 7 bisha ayaa ugu dambaysa marka goobaha waxaan arkay laysanka laga qaato gobolada Mareykanka line dheer ayaa lagu wada jira oo dadka 2 saacadood 3 saacadood ilaa 5 saacadood ay ku qaadanaysaa in ay line-kaasi gaaraan marka ka hor inta aadan tagin horta si diyaar garow dokumentiyada lagaaga baahan yahay si diyaar soo ay kamid yihiin haddii aad green card leedahay haddii aad passport leedahay waxyaabahaas oo idil si diyaarso addresskaada aad degan tahay wax cadeynaya waxyaabahaas oo idil marka diyaarsato meesha tag laakiin haddii aad iska tagto adigoo dhahaya laysanka ayaa rabaa in la bedelo real ID wax laga yaabaa in lagu soo celiyo sidaas darteed laysanku marka dhowr nooc ayuu leeyahay xidigta oo dhinaca midigta uga taalo marka laga soo tago xidig dhowr nooc ay xidigtaasi tahay mid waa gold ayada dhanba xidigtaasi mid waa black oo waa madow midna sidoo kalena waa gold oo dhaxdana ka cad halka sidoo kale gobolka California oo kale waxa gobolkaasi uu caan ku yahay xayawaanka la yiraahdo bearka xayawaanka weyn oo madow oo sidaas darteed xayawaankaasi ayaa xidigta ay ku dhex taala gobolka California markastana dhinaca midig ayay ka muuqanaysaa sidoo kale gobolka Washington State dadka degan iyaga xidig uguma taalo dadka Washington State degan waxa idinku qoran enhanced driver license ayaa dhinaca midig idinku qoran marka Washington State haddii xidigtaasi aad ka waysaan laysankiina hadhina real ID ma ahan laakiin enhanced driver license ayaa dhinaca midig qaybta kore idinku qoran marka haddii xitaa aadan haysanin macnaheedu waxa ay tahay
wadanka gudihiisa waad ku safri kartaa, wadanka dibadiisana waad u safri kartaa, laakiin waa inaad baasaboorkaada ama military ID-ga ama green card-kaada aad soo qaadataa. sidaas darteed haddii qofku wadanka uu ka maqan yahay markuu wadanka dib ugu soo laabto ayuu ID-giisa bedelan karaa. sidaas darteed ciriiri badan iyo mashquul badan ayaa ka jira goobaha real ID-ga laga qaadanayo ee guud ahaan gobolada Mareykanka, maadaama la leeyahay haddii 7 bisha Arbacada la gaaro wadanka gudihiisa kuma safri kartid, xarumaha dowladana ma geli kartid haddii aadan real ID haysanin. laakiin haddii aad wadanka gudihiisa rabto inaad ku safarto real ID-ga aadan haysan, baasaboorkaada ama green card-kaada ama military card-kaada sii diyaarso, waqti horena sii tag si baaritaan ama checking lagugu sameeyo maadaama real ID aadan wadan. arrintaasina waa muhiim, waxaan rabay inaan idinla wadaago. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doonno waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sida iyo nabadgelyo.